السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا كمان تهلكن كدعاية وجرمتك لوجو تلقى بلد وينه فتحات وبيج الشبل. runtii ummadda Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Edmonton ayaa isku soo baxay waxa loogu talagalay magaalada Edmonton in laga arooriyo $100,000 maasha Allah si oo hagar la'aan ayaa loo gurmaday adinkan insha Allah taala soo duceeya ummadda walaalihiina oo Soomaaliyeed oo dhibaataysan iyo kuwa sadaqa baxsaday oo runtii gacantooda u fidiyay walaalaha Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan beledweyne waa mahadsantihiin ka soo qaybgalka ka soo qayb gasheen iyadoo ay tahay maanta maalin axad ah baraf badan iyo qabow u dhacay dadka qaarkii ay laga yaabo xataa baabur wadis inay aad u dhib badan tahay dad badan ay xataa iska laga yaabo inay driving-ka ay maanta wadi waayaan intii ka soo qayb gashato waa mahadsantihiin meeshan media lagu duubay waxa la yiraahdaa mediahan waa YouTube media YouTube-ka magaciisu waxa la yiraahdaa Qays iyo Raxma TV-da laga daawan karana waxa la yiraahdaa waa CSP iyo Puntland TV labada TV buu ka soo baxaa inankan wax duubay marka tanna kulli waa xanuunayada waa duubis kaleeto BBC waa joogtaa marka media badan baa inoo joogto haddaan barnaamijkeena u soo laabto aniga dhowr jeer aan waxaan iraaday waa la igu qabsaday laakiin dhowr jeer aan waxaan iraaday waa dhamay MC inaan noqdo waa ka duqoobay 25 sano ku dhawaadana magaalada MC soo ahaa marka I drop the microphone baa halkaas rag odayaal fadhiyo waxa ay no you can't drop the microphone jiil yar oo cusub oo qurux badan dhalinyaro soo wada baxay oo iga cod fiican codkayga xataa waa isii bedelay maalinta ka dambaysa laakiin guri waa la igu dhagay waxa la yiraahday magaalada inta qof kale training laga siinayo marka waxa raadinaa qof i bedelo hadda kadib aan training siiyo oo aan ku wareejiyo microphone-kan laakiin aniga waxaan soo bedelay inaan mar labaad inaan ku celiyo qalabka MC-ga ana soo iibsaday hadda kadib waxa qofkii xaflad qaba gabadhii aroos qabta wiilkii birthday qaba ana la iga soo xiriiraa inta magaalada ka soo kireysan lahaydeen waa taliyiri business ku in la caawiyo waa taliyiri ana idin haye iga soo doonto ana idin ka kireenahay hadda rabtaa xataa free MC waa idin ku daraa markaas barnaamijkeena taan soo noqono xafladii ama mahadnaqii Dr. Xabiiba oo aan ognahay hawsha ay qabtay hawsha ay gashay sanadkan hawl aan inaba hadalkayga aan ku soo koobi karin marka ugu horeysa maadaama aynu ummad islaan nahay waxaynu ku faranaynaa aayadaha quraanka ah oo inoo akhriyo Sheekh Cabdishakuur falyatafadal Sheekh Cabdishakuur أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم marka ilaahay subhanahu wa ta'ala ya mahad iskale oo moogtahay kitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala ayagu fiican wax kasta loo bilaabayo marka magacaygu waa Cabdishakuur waa imaamka cusub ee saxaabanahay marka inaan waxaan 2 sano iga maqnaa oo dhulka Sacuudiga aan joogay marka alxamdulillah intiin badan waa isnaqaana waxaan insha Allah haddaan u soo noqday inaan community-ga la shaqeeyo oo aan moogtay dacwada iyo inaan moogtay masaajidda dadkii moogtay dhalinyartii lagu dadaalo marka insha Allah waxaan naga rabaa insha Allah inaan dhamaantiin la shaqeysiin insha Allah biidnillah subhanahu wa ta'ala wad maasintiin jazakumullah khair hilmaam hadal kuma jiro ana hore la igu sheegay inaan introduction kidin sameeyay waa iimaanka cusub masjid saxaaba waa in dhalinyaro badan waa inay waa isku sheekay yihiin kulay waa soo dhaweynaa iimaanka ku soo dhawo magaaladeena kulay dadka horena waa u taqiinay haddana waa ku soo dhaweynaynaa anagoo barnaamijkeena hore u sii wadana waxaan u yeeri doonaa sheekheeni magaalada oo la wada yaqaano Sheekh Maxamed falyatafadal Sheekh Maxamed oo kalmadihii aan uga baranay talada iyo waanada iyo baraarujinta sana halkan inooga yeerada Sheekh Maxamed soo dhawo إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع ماشن جوو marka ugu horeysa waxaan nafteedii iyo naftiinaba u dardaarmahayaa khayru ma yusaabihi wax la soo dardaarmo wax oo khayr badan waa taqwa Allah subhanahu wa ta'ala ilaahay cabsidiisa waa asaasu kulli shay wax la arkaba oo saadatu dunya wal aakhirah adduunka iyo aakhirada liibaanteeda waxay ku xiran tahay qofku inta uu ama dadku inta ay ilaahay u jiraan ilaahay subhanahu wa ta'ala sida ay ugu xiran yihiin marka u horeysa waxaan soo dardaaranaa waa taqwa Allah subhanahu wa ta'ala munaasabada aan meeshan u joogno sida akha barnaamijka uu noo sheegay waa laba munaasabo mid waxa weeye walaasheen xabiiba iyo tartankeedii midna waa arinta ku saabsan walaalaheen waxa gaadhay oo ah muxuu ahaa maartay dhibka dadka muslimiinta ah sida ilaahay uu ku tilmaamay subhanahu wa ta'ala wa jasad waxa weeye waa awliya ba'dhum awliya ba'd wal mu'minuna ba'dhum awliya ba'd dadka mu'miniinta barkood barka kale wali bay u yihiin dadka mu'miniinta waa walaalo innamal mu'minuna ikhwa taa macnaheedu waxa weeye wax allaala wixii la soo gudboonaada farax iyo muxuu ahaa dhib iyo dheef mid la arkay waxay hal meel bay isaga taagan yihiin waxa weeye waa sifo ilaahay uu nasiyay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala mid waxyaalaha ilaahay loogu dhawaado ugu horeeyo way waxaana soo martay inaan walaasheen ay maxaa tartantay waa la tartannay anigu waxaan aad u ictiqaadsanahay inaan ku guuleysanay maxaa yeelay waxaanu maartay waxaan qaban karnaan aragnay waxaanu gaadhi karnaa meeshaan ka sii socon doono marka soo socota marka aad baanu muxuu ahaa maartay walow waxa aan doonayna aan gaadhin haddana waxa weeye waanu raynay saasaa lagu qabaa marka walaashayna waxaan u dardaarmayaa basisha meesha hadda aan taagnahay anoo ka faa'iidaya inaysan waxba u qaadanin inay guuleysatay muxuu ahaa inay u qaadato insha Allah ta'ala annaguna sadaas leeyahay walaalayaal hadee ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka mu'miniinta wuxuu faray sidaan aayadii hadda aan akhriyay wal mu'minuna ba'dhum awliya ba'd inaanu mar la arkaba muxuu ahaa isku xirnaano oo midkaanaga dhibka qaba aanu garab istaagno midkaanaga muxuu ahaa maartay faraxsan aan la faraxno midka dhibon aan la dhibtoono marka taa macnaheeda waxa weeye in ilaahay sidoo nabiga kaleey salaatu wasalaam u sheegay muslimiintu inay yihiin jasad waahida inaanu dareeno mid ayada marka midaas ayada anaga qof la arkaba anaga inoo noqonaysaa waa wax aanu naftaanada aanu ku noolaanayno ilaahay aan ugu dhawaanayno nabiga kaleey salaatu ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ayadatan la khayra fi kathirin min najwaahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas dadku kulan ay kulmaan iyo hadal ay gooni u hadlaan khayr ma laha illa saddex mooyeen
dad meel isugu tagay ee gooni u hadlay khayr ma laha ilaa saddex inay isugu imaadaan mooyeen ilaa man amara bisadaqatin dadka isfaray sadaqo waa la soo imaaday waa laga wada hadlay waxa laga hadlayo waa sadaqo ahlu khayr aw macruuf wax wanaagsan bay isfarayaan war muxuu ahaa waxaas iyo waxaas waa fiican yihiin aan samayno waxaas iyo waxaas waa xun yihiin aan ka fogaano waa khayr ahlu khayr waa dadku ilaahay doonay aw muxuu ahaa maartay aw islaahin bayna naas dad baa isqabtay dad baa dagaalamaya ama ha badnaadeen ama ha yaraadeen islaax bay isugu imaadeen ayagana ahlu khayr way inay dadka islaaxiyaan marka waxaanu farannahay sharaftaanudana nahay mar la arkaba mar waliba inaanu u istaagno garab inaan isgarab taagana sidoo ilaahay noogu leeyahay bacduhum awliyaa bacd inaanu garab muxuu ahaa qofba qofka kale bar la arkaba aan umuuraha anagu aanu u istaagno marka waxaan hadalka aan aad in isu xusuusin doonaa inaanu arrinkan ayada ah oo noo imaan doona oo ah muxuu ahaa maartay waxa walaalaheen ku dhacay maanta anagu waan faraxsanahay bal imagine yani muxuu ahaa maartay takhayal adigoon guri iyo maxaa cunto aruurtaadii iyo adigoo aan midna haysanin annagu hadda guryahaanagii iyo cuntadaanadii iyo noloshaanadii baan u noqonaynaa masawirada aad aragteen waa dhab wey sida muxuu waa xaqiiqadii magaalada noo soo sawiray marka inaanu xanuunsano oo waxba aanan reebanin iyo caqligu keenaya arinta ayada waxa noogu dambeyn doona shuyuuqda iga dambaysa marka insha Allah ta'ala waxaan ilaahay ka rajaynayaa ilaahay inuu waafajiyo wuxuu asagu raadi ka yahay aqulu ma tasma'una astaghfirullah li wa lakum waa uu mahadsan yahay sheekh maxamed sheekh anaga magaalada ilaahay ajri xasan asna Allah ka siiyo mar walba waan u baahanahay taladiisa iyo waanadiisa iyo wax sheegiisa inta haddaan kaga sii gudbo barnaamijkeennii qaybtii ugu horeysay oo ahayd qaybtii Dr. Xabiiba ayaan ku hormaraynaa markay Dr. Xabiiba inoo dhamaato qaybteeda waxaan rabaa dadka inaysan bixin oo ay ka qayb qaataan fundraising-ka laakiin Dr. Xabiiba ayaan arrinteeda ku hormaraynaa waan ognahay doorashadii gabadha ay gashay iyo kulligeen doorashadan ku wada jirnay habeenkii waa la soo wada jeeday dad baa biladhan ordaayay dad baa sanado ordaayay dad badan aad bay u shaqeeyeen iyada lafteeda aad bay u dadaashay gabadha anigu ma qabo marka waa loos gareynay yes waa loos gareynay kursigii waa weynay taa macnaheedu ma aha waa isdhiganay waa dadaalay intaan gaari karno waa aragnay waxaan naga dhimanna waa aragnay waxa khaldanna waa aragnay kulli hadda waxa inoo jooga sayid oo ah campaign manager baan ku magacaabaa laakiin isagu waa iga diiday maanta isaga campaign manager anaga dhanka Soomaalida ka ah sayid soo dhawow adaana warbixinta kaaga fadhinaa tafadhal sayid runtii waa nin dhalinyaro daadiisa iyo dadaalkiisa isma laha ma sha Allah baan dhihi karaa marka soo dhawow sayid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii xaqiiqatan Soomaalida Edmonton waxa waaye dad horta aad iyo aad hadii la fiiriyo Canada meesha ka joogno iyo North America meesha ka joogno waxa la isku raacsan yahay oo xaqiiqo ah dad firfircoon oo maxal laha dhibaato maxal laha wanaag guul anywhere ka fiirisid hammi qaba oo hore inay u socdaan raba ayaan nahay marka horta taas aad iyo aad ay Edmonton ay ugu mahadsan tahay waxa kaloona loo baahan yahay really in maxal laha effortiga la wado ana la sii dabcinin oo la daalin runtii hadii aan ku hormaro arrinka ka dhacay Hiiraan iyo maxal laha gobolada webiga Shabeelle uu maro dhibaato aad iyo aad weyn ka dhacday ani personally Soomaalida waa region ay ka soo jeedaan ani personally waxaan ku dhashay Muqdisho aan ku dhashay xamar inta u garanaysaan xaafad loo waa bari laakiin ehelkayga iyo dadkayga familkayga waxay ka soo jeedaan meel la dhaho maxal laha Beledweyne qaasatan magaalo yar oo la dhaho Moqokori dadkii yaqaano
iyo magaalo kale oo Jallaqsi laho marka qaas ahaan adeerkay iyo abtiyaashay iyo maxaa la hooyaday ehelkeedii aabahay ehelkiis u dhawaa ayaa webiga fatahaatiisa dadka aad u saameysay ee kamid yihiin qaas ahaan marka habeen iyo maalin ayaan beledweyne la hadlayay intii arrinkan socotay maanta oo u dambeysay ayaan la hadlayay marka wax waaye aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin reer Edmonton inaa maxaa la dadkaas masaakiinta ah oo dhibaatada gaartay aan kulligeen aan garab istaagno maxaa la dhahaa waana arin Soomaali oo dhan lagu yaqaano maxaa la dhahaa hadii dadka Soomaaliyeed aan nahay dhibaatooyin fara badan waxba waa nalaga sheegaa laakiin meesha kaliya ee Soomaali oo aad loogu yaqaano wax waaye waa dad aad u gacan furan waana dad markay dhibaato dhacdo iyo musiibo dhacdo aad iyo aad isku garab istaago oo dhibaato kastee tahay wax allaale wixii hayaan gacanta u hora oo u fura maxaa yeelay anagoo halkan qurba ku ah oo anaga xataa maxaa la dhahaa dad iska dhibaataysan iska ah ayaa wadankeeni dadka jooga anagay nagu tiirsan yihiin marka reer Edmonton aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin maxaa la dhahaa aabahay maanta markaa la hadlayo Muqdisho jooga waa u sheegay inay event meesha ka dhaceyso oo reer Edmonton maxaa la dhahaa ee actually dad oo wiligood xataa qaarkood ana maxaa la dhahaa tagin ama dad ka aqoonin laakiin maadaama Soomaalinimo because ereyga Soomaalinimo iyo waxay macnaheedu leedahay aad u weyn marka inuu dadka dhiigi wada kacay oo dhibaatadeedna wada saameysay sidoo Sheekh Maxamed ka hadlayay sawiradaas iyo dhibaatada meesha ka dhaceysa inay real tahay oo maxaa la dadka ay ka wada gubanayaan marka personally wuxuu dhahay reer Edmonton waa ku mahadsan yihiin iga gaarsii marka aad iyo aad ayaa ugu mahadsantihiin taas waxa uga baxaya maxaa la dhibaatadaas taagan oo noona wada taalo in ummadda Soomaaliyeed maxaa la ma aha sidaan oo every year last year waxay ahayd May I think in Edmonton ay u istaagtay waxaana u maleynayaa waxa isixi karo dhalinyaradii ka shaqeysay ee kulmiye iyo kamid yihiin oo meesha joogaan iyo maxaa la asxaabta kaleeto Xasan Tukade iyo macalinka dhamaan lacag fara badan ay Edmonton aruurisay oo una noo diray maxaa la Jamaal really Jamaal organization kiis wax fara badan ay maxaa la wadankiina ka qabtaan ummadda Soomaaliyeedna waxay siiyaan vehicle oo markii lacagta la aruuriyo waxa u baahan tahay meel process amarsiisid marka last year I think waxaan maleynaa ilaa $20,000 oo Mareykan ah in la diray marka aad iyo aad ayaa ugu mahadsantihiin insha Allah taala caawana waxaan rajaynaynaa in dhamaanteen aan ka wada qayb qaadano maxaa la in dadkii kaleeto la sii gaarsiiyo oo laga soo qaado maanta u dambeysay ayaa waxa la dhahay nihow waxaas lagu soo qoray ilaa soo dir caawana waan ka Assalamu alaikum